سلطان سعيد عثمان علي يسيدو كلا قراد عبد الرزاق قراد سوف الدران oo ka hadlay maanta halkii lagu tukanayay salaada Ciidul Adha ee garoonka weyn ee Xabada Stadium ayaa waxay ugu horeen hambalyo u direen walaalaha Islaamka iyagoo ugu hambaliyay munaasabada Ciidul Adha waxaana intaasi kadib ay tacsi u direen dadkii ku geeriyooday shalay toole dagaaladii ka dhacay deegaanka Qoriley iyagoona ugu baaqay beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanadaasi inay joojiyaan colaadda sidoo kalena ugu baaqay cid kasta oo wax garada inay ka qayb qaataan sidii loo dajin lahaa colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay وانا كان ugu horeyn Suldaan Saciid Ismaan Ali oo ka hadlaya arintaas ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxyaalo dhigaha iyagu diideen oo la maqlaynay maalmahanba oo dil iyo dhiig ah in ilaahay naga joojiyo ilaahay saasaanu ka baryaynaa waxaanu baaq u diraynaa dagaalada ka socda Qoriley wixii soo jooga oo iyo xaggaas كحيجا باق نبضات بانو درينا باق نبضات بانو درينا ضد كإسلام كأهل كهل كإسكود ليو وحفايدات كجاريسان بجرتو أنت أصلا سود اللي أنت أصلا سود اللي يا أنت أصلا بتاعي عن وحسود اللي وحي ترى إسام بجرتو وعن دنبي يا فساد يا دباطة هاي كورنين إسام بجرتو وعنو لنا حبدها لتوجيو حبدها هلا تشوتشيو وينيد عينينا حبدها هلا تشوتشيو حبدها هلا تشوتشيو وحي إسلاما مسؤولية دي صارنتهاي علماء عاقلة إسلاما وحن كبرينا إني كقايم قاتان إن حبدها هلا تشوتشيو إلهينا أي بريان يقول عود اسكو ديان إن أي أرنتها وحكا قبطان وحبد تشوتشين la sameeyo wada hadal la sameeyo intaas aan soo jeedinaynaa salaamu calaykum dhinaca kale Qaraad Cabdi Rasaaq Qaraad Soofa Duraan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay nabaddu waxaana walaalaha Islaamka ee jecel khayrka ka dalbaday iyo cid kasta oo ka dhiidhiyaysa inay ka qayb qaataan sidii loo dajin lahaa colaadda ka soo cusboonaatay deegaanadaasi sallallahu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam إلهي دعاء أنه أقبله أنت ومالي وين وعن شغلنا مال خير له شرينا مالي وين بيهاي ما أنتنا مالي وين وحانو لنا هاي وراها ومددك كوها والله إنا كوس كدقان وإستلان وإيديك إسلام كبرناستان وأي مقالوين كويران مقالوين كاس وديل كاسي سومالي وإستلديل جرتي وأنا خير الرأي إنه لنا هاي وإلهي نقول امتحامه مقالوين كإن لقرأوا ما لا يسكوا يرأوا ولا يسكوا حيالله صنعهم ويا رنتي وصنعهم رسوكر لي ويا أرنت عادي عاد بانو قحنا هاي كماشة كالصعدة يعني ما تدا ماشة كالصعدة يصنعياش مارتي عن في عنينا مارتي كصباحية عاد بانو قحنا هاي وحنو باقينا ديكا إلا تشوتشيو حبدا إلا تشوتشيو أرنتان وذا هذا لو قداميو قول لو قاعد مايو لكلا قوري مايو dadka hawsha ku hawlan meel kasta aad joogeen ka afka kaga hawlan iyo ka adinka kaga hawlan waxaanu leenahay xabada joojiya dadka muslimiinta ah sama jeclaha ana waxaanu leenahay derisiyada iyo dadka maartay wanaagsan ee khayrka qaba ee dhinaca ka xiga ee dhinaca ka xiga ee muslimiinta waxaanu leenahay soo gurmada oo muslimka halla kala qabto dadka aynu kala qabanno oo hal loo soo degdego oo ilaahay ajri iyo xasanaad laga raadiyo dadka aan hawshan ku hawlan waa laba qaybood oo wax garad iyo wax magarata weeye wax magaratadii baa isdilaysa wax magaratadii baa wax garadkii iyo wax garad la'aantii baa dilaysa dadka wax garadka waxaanu leenahay idinkuna dadaala oo wada hadla oo caruurtiina gacmaha qabta oo caruurteena gacmaha aynu qabanno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano walaalayaal war ilaahay aan ka cabsano war Soomaali waligeed waa isdilaysay wax goolana ma kala gaadhayso horeyna uma kala gaadhin haddana kala gaadhi mayso berri markaad ka iska dhigtaan boqolaal iyo boqolaal la iska dilo ayaa la oranayaa cid isuma keen dhaantay war isu keena war waxaas aqli ma ay xabada joojiya oo ilaahay ka baqa oo dadka inta dambe la daba qabto aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka muslimiinta ah khayrka jecel waxaanu leenahay walaalayaal fadhiga ka kaca oo meesha loo gurmado fadhiga ka kaca aanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وعبد العزيز آذن جامع سم نيوز بوهولة